لأن لبدي ملك باسكوي مدو قار waxay leeyihiin waa ahlan naar boqol naf buu qabaayo waa dhagar qabe ninkan naar baan u qaadanay ruuxdiisa annaka qaadayna qoladii kale waxay leeyihiin jaa taiban ila Allah azza wa jalla ilaahay buu soo noqdo uu toobad keenay ma aragtaanay jannada iyo xagga naxariista ilaahay baa loo qaadaya markaas malak suurad aadamiye la ayaa ilaahay u soo diray tabaaraka wa taala dana markaas malagii la yiri waxaad mitiraysaa dhulka uu dambiga ku galay iyo dhulka uu hijroonayay qiyaas baa lagu yiri dana markaas waxa uu batay dhulku u socday buu markaa ayuu u dhawaaday taaka inta leeg baa la yiri وفي الروايات kale wuxuu nabigu yiri ilaahay baa amar ku siiyay dhulku u socday ee dadka wanaagsan ay ku noolaayeen baa la hadlo lagu yiri adoonkaasi waa toobad keenay u dhawow dadna taaka inta leeg buu u dhawaaday taaka inta leeg sidaas markaa malaa'iktii naxariistu ay ku qaadaan oo ahlu janno ku noqdaan la yiri wa shar'un liman kana qablana bi culimadu yiraahdeen ummadihii naga horeeyay toobadooda in la aqbalo waxa loo shardinayay inay mujtamaca ay ku dhex jiraan ee liita ee fasaadsan ee dhiiga daadinaya ee dagaalamaya inay dadku ka dhex baxaan oo mujtamac wanaagsan oo diin loo alla ka cabsila meesha ay joogaan inay u hijroodaan ayaa maaragtaanay shariicadihii ummadaha hore ka mid ahayd ama inaka shariicadeena toobada culimadu markay ka hadleen waa kuwii lahaa toobadu markay adoonkiyo ilaahiisa ka dhaxayso waa saddex weeyaan saddexda hadii laga helo toobadaadu way ansaxaysaa hadii mid laga waayo toobadaadu ansixi mayso ka koobaad waa kii culimadu waxay yiraahdeen dambiga aad ku jirtay waa inaad ka dhax baxdaa talabaadna ma aragtaanay dambiga aad sameeysay waa inaad cazimiya go'aan aad la timaado inaad mar labaad dib dambiga aanad ugu noqon ta saddexaadna waa inaad markaad xasuusato dambiga aad sameyn jirtay waa inaad ka qoomamaysaa oo ka nadamootaa saddexda hadii qofka taa'ibka laga helo toobadiisu way ansaxaysaa saddexda ha shardi hadii mid uu ka maqan yahayna toobadaadi waa naaqis wali weeyaan hadii bani aadan xaqiisi meesha uu ku jirana shardi afraad bay culimadu sheegeen oo waxay yiraahdeen waa inuu qofku maaragtaan xaqi bani aadan lagu lahaa waa inuu qofka wixiisa iskaga celiyo weeyaan ama waa inuu cafis ka dalbaa marka ummadihii naga horeeyay toobadooda waxa looga dhigay shuruud inay ka dhaxbaxaan mujtamacan xun ee dhiiga ay ku dhaxdaadiyeen oo deedna mujtamac wanaagsan oo meel wanaagsan ku nool inay raadsadaan ba shardi looga dhigay